sacuudiga oo ku dhawaaqay in birito tahay maalinta koowaad ee ciidul fitriga hogaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka Kenya oo si lama filaan ah uga hadlay kiiska badda madaxweyne Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee midowga Yurub u fadhinaya Soomaaliya muqdisho oo suuqyada qaar habeen iyo maalin mashquulka ugu badnaa ee diyaargarowga ciidda uu ka jiro waaqiyo degdeg loogu dirayo beelo maanta ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud yaasha dhaqanka muqdisho oo shirkadda Hormuud uga mahadceliyay garab istaaga dadka caawimaadda u baahan iyo qabanqaabada dibadbaxyo looga soo horjeedo Trump oo ka socda UK markale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa isniin ay talaada soo galayso taariikhdana waxay tilmaamaysaa 3 bisha 6 ee June 2019 Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa warka oo dhan la diyaara Cabdulqani Cabdullaahi Ibraahim waa mahadsan tahay habeen wanaagsan Ramadaanul Kariim ciid wanaagsan warkii oo dhan wadanka Sacuudi Arabia ayaa waxa uu goordhow ku dhawaaqay in maalinta berita ay tahay maalinta koowaad ee ciidul fitriga iyadoo oona la sheegay in magaalo ka tirsan wadanka Sacuudi Arabia dhanka waqooyiga ka xigta magaalada caasimadda ee Riyadh Cabdulqani Cabdullaahi Ibraahim oo isha ku hayay wararkan wadamada berito ay u tahay maalinta koowaad ee ciidul fitriga iyo wadamada kale sheegay in maalinta berita aysan ahayn maalin ciid ay noo soo koobo Cabdiqani Cabdullaahi Xuseen Canshuur mahadsan tahay waxa inta badan dunida laga baadigoobayay saacadihii la soo dhaafay bilashada bisha Shawaal oo sidoo kale soonfur afka Soomaaliga lagu yiraahdo si loo ogaado in birito la ciidayo iyo in kale wadamo badan ayaa saacado ka hor waxay sheegeen inaysan arag bisha barakaysan ay leedahay bisha Shawaal isla markaana ay birito u tahay maalinta soddonaad ee bisha Ramadaan arbacadana ay ciidayaan maalinta koowaad ee Shawaal hase ahaatee Sacuudiga oo laga warsugayay ishana lagu hayay warka ka soo baxaya dawladda Sacuudiga ee ku aadan bilashada bisha Shawaal ayaa waxa lagu sheegay warka in la arkay bisha oo birito ay tahay maalinta koowaad ee ciidul fitriga magaalo la yiraahdo Tamir oo qiyaastii ay Canshuurow 140 kilomitir dhanka galbeed magaalada Riyadh ka xigta ayaana laga arkay bisha sida wararka ka imaanaya dalka Sacuudi Arabia ay sheegayaan dhanka dawladda Soomaaliya waxa socday saacadihii la soo dhaafay sidoo kale baadi goob loogu jiro bilashada bisha hadii laga arkay qaybo kamid ah Soomaaliya ama gobolada dalkeena waxa mas'uuliyiin aan la xiriiray oo wasaaradda diinta iyo waqaafta xukuumadda Soomaaliya ka tirsan ay sheegeen in ay haatan ku sugan yihiin wasaaradda warfaafinta oo ay warka soo saari doonaan taasi oo ka dhigan in aan wali si rasmi ah ama war rasmi ah oo dhanka ciidda ku aadan uusan ka soo bixin dawladda Soomaaliya Sacuudiga ayaa hadda la xaqiijiyay inuu ku dhawaaqay in birto ay tahay maalinta koowaad ee ciidul fitriga wadamada kale marka aan sheegno saacado ka hor ku dhawaaqay inay birri maalinta soddonaad ee bisha Ramadaan ay u tahay waxa kamid ah Australia Philippines iyo sidoo kale wadamo kale oo saacado ahaan marka loo fiiriyo waqti hore ay afureen ama la gaaray xilliga ay baadigoobayeen bisha hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka wadanka Kenya Aadan Ducaale ayaa waxa uu si lama filaan ah uu kaga hadlay kiiska badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya Aadan Barre Ducaale gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya ayaa waxa uu ka hadlay xiriirka sii xumaanaya ee dhinaca diblomaasiyadda oo u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya kaasi oo ku qotoma muran dhinaca badda ah oo labada dhinac ay kala tirsanayaan waxa Aadan Barre Ducaale uu sheegay inuu yahay muwaadin Kenyan ah isla markaana marnaba uusan ogolaan doonin in Soomaaliya ama dal kale oo Afrikaan ah uu qaato bad ay Kenya leedahay hase ahaatee waxa uu ku taliyay in labada dhinac ay qaab wada hadal ah ku dhameeyaan muranka u dhaxeeya dhanka kale waxa gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale uu shaaciyay in Kenya marnaba aysan ka bixin heshiisyo ay horay ula gashay Soomaaliya kuwa oo ku aadanaa isu socodka shacabka labada dal waxaana uu sheegay in dayuuradaha dhawaan Kenya ay ku soo rogtay inay soo maraan magaalada Wajeer ay tahay oo kaliya in la xaqiijiyo amniga guud ahaanba duulimaadyada ka imaanaya gudaha dalka Soomaaliya isla markaana Kenya aysan marnaba ka bixin heshiisyadii ay horay ula saxiixatay Soomaaliya hadalka mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay la dareemayay in Kenya ay ka baxday waxyaabo fara badan oo ay Soomaaliya horay ula heshiiyeen inkastoo Kenya ay iska fogeysay in caqdad gaar ay u qabto Soomaaliya haddana waxa muuqata in Kenya muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo rogeysay tallaabooyin loo arki karay inay cadaadis ku saarayso dawladda federaalka Soomaaliya
inkastoo go'aanka la xiriira muranka badda uu yaalo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ haddana waxaa muuqata in Soomaaliya iyo Kenya weli aysan isku aragti ka ahayn habka loo marayo xalinta muranka dhinaca badda ah ee u dhaxeeya labada dal waxaana Kenya ku nool Soomaali aad u badan kuwa oo ku jira xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya ayaa waxaa ku nool Soomaali aad u fara badan kuwa oo walaac xoogan ka muujinaya xaaladda maalinba maalinta ka dambaysa halka ay ku sii socoto. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu maanta warqadaha aqoonsiga uu ka guddoomay danjiraha cusub ee midowga Yurub ee loo soo magacaabay Soomaaliya Nicholas Berlange. madaxweyne Farmaajo iyo danjiraha ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta taageerada midowga Yurub ay siiso Soomaaliya iyo sidii loo dardargelin lahaa wada shaqaynta labada dhinac isaga oo u xaqiijiyay in dawladdu ay si buuxda ay ula shaqayn doonto una fududeyn doonto xilgudashadiisa. madaxweynaha ayaa danjiraha cusub ee midowga Yurub uga mahadceliyay taageerada joogtada ah ay la garab taagan yihiin Soomaaliya iyo kaalinta muuqata oo ay ku leeyihiin dib u dhiska iyo nabadeynta guud ahaan geeyiga Soomaaliya. danjiraha ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu midowga Yurub uu u noqdo wakiil guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya isaga oo ballan qaaday inuu ka shaqayn doono xoojinta wada shaqaynta labada dhinac. munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya Cali Saciid Fiqi waxa ayna dhammaantood ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin la shaqaynta danjirahan cusub ee loo soo magacaabay Soomaaliya una qaabilsan midowga Yurub. markana haddii aynu eegno gobolka Galgaduud baaqiyo degdeg ah ayaa waxaa loo dirayaa beelo walaalo ah oo maanta ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. maxamed cabdiweli tooxo wariyaha idaacadda kulmiye ee gobolkaasi ayaa warkan eegaya. waxaa soo baxaya baaqiyo nabadeed oo loo jeedinayo dhinacyada ku dagaalamaya qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya gaar ahaan tuulooyin oo yimaada deegaanka bulshada gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka oo ay ku dhinteen dad fara badan kuna dhaawacmeen kuwa kale qaar ka mid ah odayaasha gobolka Galgaduud ku sugan ayaa galabta magaalada Dhuusamareeb kulan ayaa ku qabteen waxay si degdeg ah ku codsadeen in la joojiyo dagaalka isla markaasina waxay ugu baaqeen dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka hoostaga deegaanka Bulcale inay joojiyaan dagaalka isla markaasina miiska wada hadalka ay yimaadaan meeshii lagu cibaadaysan lahaa ayaad waxaad bilowdeen inaad adiki wada dhashay xabad isla dhacaydaan waana dad islaam ahayn waryaada ka joojiyo naga joojiyo xabadda naga joojiyo xabadda ayagoo iga dambayn doonaan odayaashii intaasaan warka inaan furaan rabay odayaashiina ka hadli doona go'aankii aan gaarnay na odayaashaa si fiican usii naasnaashi doona. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aniga waxaa leeyiraa nabadoon maxamuud cabdilla warsame oo loo yaqaan Rogomey. arrintan markaan maqlay guriyaalan ka soo booday shir Dhuusamareeb ka shirayaan soo galay in galabta laydinla hadlay noqotay dagaalka ka socda agagaarka Bulcale ama Taraguduud waxaan rabnaa inaad joojisaan dhiigga islaamka oo ramadaanka jooga oo ilaahay xaqi ku banaanayn oo islaamka xaqiis ku banaanayn oo nabadda yaani diidaya oo shaydaanku ka adeegay oo aad iskula dheelmanaysaan oo wiil iyo adeerkiis tihiin waa wax laga yaqsado joojiya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baan leenahay. xaaladda ayaa inta degan in kastoo aanay jirin ciidan si toos ah u kala dhex gashay maleeshiyooyinka dagaalamay waxaana odayaasha dhaqanka ku sugan gobolka Galgaduud maamulka Galmudug ay ka codsadeen in deegaanada ay wax ka dhaceen ay u diraan si loo kala dhex galo dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya. markana Muqdisho magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa suuqyada qaar habeen iyo maalin si isku mid ah dadka yihiin kuwa ka dukaamaysanaya sabab la xiriirta u diyaar garowga maalinta ama maalmaha Ciidul Fidriga. waxaa ka harsan maalinta ku weyn ummadda muslimiinta ah ee Ciidul Fidriga wax ka yar 24 saac waxa ay sanadkiiba mar soo martaa dadka islaamka
waxaa dunida muslimka ka socda diyaargarowga ciidda dalkeenna soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha aadka looga diyaargaroobayo waa suuqa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir oo ka mid ah sayladaha ugu mashquulka badan caasimadda muqdisho maalin iyo habeen si isku mid ah ayay dadka reer muqdisho ugu dukaamaysi tagaan sayladaha aan booqannay keliya xamarweyne kuma eka xilli dambe oo habeen ah ayaynu gaarnay waddada ugu mashquulka badan ee maka almukarama xaalkuna waxa uu ahaa sidan aad ayaan ugu faraxsan inaa caawa nagu soo booqataan moolka olomool gaar ahaan iskuuska dabka ku yaalo marka soo dhawaad ayaan leeyahay caruuraan waxay qabataa dharka ilmaha dharka ragga jaakado shoobino iyo wax walba waxaana shaqeynaa 24 hours wax walba ee customerka naga baahan waa ka caawina dhar ha ahaato kabo labis anything marka aad ayaan ugu faraxsanay marka maalin waxaan ugu adeego waaye qorax kuleelkii iyo soonkii hadda laakiin nabad aan haysana alxamdulillaah kastoo baryahan magaaladu waa noo dhisan tahay nabadeennana aaday u fiican tahay habeen hore waxaa muqdisho ka tegey moolka muqdishoan tegey dukaamanka ku dhawaay 6 saac habeen waa laga adeeganaya bajaajigna caadigu u socda nabad ay ku haysteen nabadda hadda haysana allah noo soo kordhiyo waxaa maragma doonto ah inay kuu muuqato oo aad arki karto inaan loo kala harin diyaargarowga maalmahan inkastoo mashquulka iyo cidhiiriguba aad ka dheehan karto waddooyinka soo gala suuqa ma ahan mid xidhan oo dhagxaan lagu jaray cabsi amni darteed waddada afariirdoodka ee gasha suuqa xamarweyne balse waa mashquulka dadka iyo gaadiidka doonaya inay gudaha u galaan suuqa si ay baahidooda dukaamaysi ay u soo helaan waxaa socota howl adag kuma filna in mihradda ganacsiga keliya ay joogaan qof ama laba maalmahan oo kale kulan ay soo qabanqaabiyeen odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada muqdisho islamarkaana loogu mahadcelinayay shirkadda hormuud ayaa waxuu maanta ka dhacay magaalada muqdisho kulankan ayaa intiisa badan waxaa looga hadlayay sida ay u garab taagan tahay shirkadda hormuud dadka danta yar ee ku nool magaalada muqdisho ee gobolada dalka islamarkaana ay u garab istaagtay bisha barakeysan ee ramadaan waa kuwan qaar ka mid ah odayaashaasi oo maanta warbaahinta la hadlay salaan kadib sidaad boorka arkaysaan dhugasha waxaa dhigay odayaasha soomaaliyeed ee dhaqanka waxay u dhigeen bulshada qiimaheeda kala duwan oo halkan fadhida oon dhihi karno waa labeyntii bulshada ujeedkuna waxaa weeye in loo mahad celiyo ama lagu ammaano ama lagu dhiirigeliyo waxqabadka ay muujiyaan shirkadda hormuud oo aan runtii la koobi karin bulshada qiimaha inuu fadhido iyo tallaabooyinka isdabajooga ah oo ay mar waliba qaado balse hadda midda ugu horreysay waxay gacan ka geysatay dadka soomaaliyeed oo aad u daruufaysan oo danyarta ah oo maanta dhibaatada ay ku haysato magaaladan caasimadda ah ee muqdisho dhaafaheeda afur iyo mucaawino ayay gaadhsiisay intii ay alla u calfay marka arrintaasi bacdamaa odayaashu ay yihiin aas-aaska bulshada waxay nala noqotay inaan ka mahad celinno bulshadana u yeerno inta aan ka gaarno shirka ujeedkiisu intaasuu ka kooban yahay waxaan rabnaa marka dadka waxay u baahan yihiin ciddii waxqabata sidaasoo kale lagu dhiirigeliyo waxqabadka midka hadda ay qabteenna looga mahad celiyo midka dambe oo laga rabana lagu dhiirigeliyo oo la yidhaahdo horowada waa mahadsantihiin oo la sheegay waxqabadka badan oo ballaaran ay u samaysay ummadda soomaaliyeed shirkadda hormuud waxaan leenahay soo dhawow allah wuxuuna baraka allah idinku bedelo waxaa idinka dhiman inaad galmudug dekada u dhisaan oo shirkada la yidhahdo hormuud hortoko shirkadada badan yihiin qofkii wax kuu qabata oo wax laguma qabata waad fiicantihiin haddii laga makeeno waa la sii daro inaan intaas dhammaan dhahna waa mahadsantihiin waxqabadana soo koogaya qabteen wax badan oo naga fogaayo loo soo dhaweeyey bulshada adeega markastoo loo soo dhaweeyo waxba ugu fadhiyaa waxaa ka mid a waxa ay qabteen waxaan waa ugu horeeya waxaan hadda la taaganahay isgaarsiinta waa laga qabtireen si cajiiba beled iyo baadiye meel sidaa qofka geela jara qofka eriga jara iyo qofka dugsiga duuga dhammaan
dhanka kale gudoomiyaha hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirkadda Hormuud ay mar kasta garab taagan tahay dadka danta yar isla markaana ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan dadka danta yar isagoo u mahadceliyay kulanka ay soo qaban qaabiyeen odayaasha dhaqanka ee lagu mahadcelinayay waxqabadka shirkadda Hormuud Foundation. salaamkii runtii waxay maanta ay tahay munaasabad ama xaflad shuquul guryaha runtii lagu abuurtay ama la gelisay taasoo aan ugu mahadcelinayno odayaasha Soomaaliyeed inay soo qabanqaabiyeen munaasabadan ay ugu talagaleen in hawlihii aan wadnay haddii aan shirkadda Hormuud Telecom ku saabsanay garab istaagga iyo gurmadka bulshada Soomaaliyeed qaybada kala duwan marxalad kasta iyo makaan kasta inay leedahaan dadaalkeena sii wada anagana dalkeena qaadanahay runtii waa madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa weerar afka waxa uu ku qaaday duqa magaalada London oo ku tilmaamay inuu yahay mid ku fashilmay xilka uu hayo. Trump ayaa hadalkaas ku soo qoray barta uu ku leeyahay Twitter-ka saacado kadib inta uusan ka degin magaalada London oo booqasho 3 maalin ah uu ku qaadan doono. madaxweynaha Mareykanka ayaa tilmaamay in Khan uu wax ka qaban waayay falal dambiyada ka dhaca magaalada London halka dhigiisa New York Bill D uu shaqadiisa si wacan u gutay. Trump ayaa intaa raaciyay inuu UK uu ugu safrayo saaxiibtinimada muddada fog kala dhaxaysa Mareykanka uusan eegeen hadallada Khan. dhanka kale magaalooyinka waaweyn sida magaalada London iyo Manchester ayaa waxaa ka socda qabanqaabada dibadbaxyo waaweyn oo ka dhan ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo booqasho 3 cisho ah uga bilaabanaysa magaalada UK ee Britain. guud ahaan warkiina waa waddanka UK aan iraahdo dhageystayaal ee Britain warkiina waa eeginta Maxamed Cabdi Maxamuud Dalal ayaa soo saarista gacan weyn ka geystay tan iyo kulan dambe amaanaal madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa weerar afka waxa uu ku qaaday duqa magaalada London oo ku tilmaamay inuu yahay mid ku fashilmay xilka uu hayo. Trump ayaa hadalkaas ku soo qoray barta uu ku leeyahay Twitter-ka saacado kadib inta uusan ka degin magaalada London oo booqasho 3 maalin ah uu ku qaadan doono. madaxweynaha Mareykanka ayaa tilmaamay in Khan uu wax ka qaban waayay falal dambiyada ka dhaca magaalada London halka dhigiisa New York Bill D uu shaqadiisa si wacan u gutay. Trump ayaa intaa raaciyay inuu UK uu ugu safrayo saaxiibtinimada muddada fog kala dhaxaysa Mareykanka uusan eegeen hadallada Khan. dhanka kale magaalooyinka waaweyn sida magaalada London iyo Manchester ayaa waxaa ka socda qabanqaabada dibadbaxyo waaweyn oo ka dhan ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo booqasho 3 cisho ah uga bilaabanaysa magaalada UK ee Britain.